xaflad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo wafdi oo hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane maxamed xaashi cabdi ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay caasimadda labaad ee waddanka Britain magaalada Birmingham. kulankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Birmingham. hadaladii halkaasi laga soo jeedayna ayaa qaarkood waxaa ka mid ahaa daawadayaal sida tan madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug mudane maxamed xaashi cabdi wafdiga la socda ee ballaaran oo ay ka mid yihiin golaha wasiirada iyo xildhibaanadaba iyo marti sharafta kale ee la socota madaxweyne ku-xigeenka culimada diinka aqoon-yahanada haweenka anigu ku hadlaya magaca guddiga qabanqaabada xafladan qiimaha badan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta qiimaha leh ee nagala soo qayb gashay xafladan waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada magaalada Birmingham. waxaan hadda halka aan ka xusayaa madaxweyne ku-xigeenkeena runtii oo nin madaxan aqoon-yahan oo runtii aan dooranay maxamed cabdi maxamed cabdi xaashi runtii waxa weeye xildhibaanada la socda oo ka mid ah daa'ir qaybiin iyo xildhibaan kale cali gure madaxda kale oo sharafta looga socoto marti sharaf kale waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaalada Birmingham ummadda Soomaaliyeed oo aan maamulo kala ahayn balse hal jamhuuriyada maanta wixii loo dhayahay markii markii la yiri waxaan go'aan ku gaarnay inaan anaguna maamulkayga dhismo taageerno sidaas aan ku soo dhaweynaynaa howlkan caawan joogno oo ah ilaa wuxuu ahaa howlkii ugu horreeyay markii la aasaasay Somali Central State lagu qabto oo meesha loo waxaan ka mid ahaa dadkii nasiibka u yeeshay markaas inay wax ka soo abaabulaan xafladii ugu horreysay ee lagu aasaasay Somali Central State. sidaas daraaddeed mar labaad madaxweynaha waxaan leeyahay ku soo dhawow Birmingham UK Mosley and Hilal Hall. waxaan rabaa inaan ku wadaago arrimaha aan doonayno inaan maaragtay runtii annaga galmudug ay u taageertaan waxaa ka mid ah aqoontaada laga baahan yahay aqoonta muhiim waaye dadkiina aqoonta inaad dhulka soo noqotaan uga faa'iidaysaan ummadda aqoontiina waa maaragtay waa shay aad muhiim u ah haddii Soomaaliya laba bilood soo joogto oo barinta ku shaqeyso oo dhaqtar aad tahay oo isbitaal intaad tagtay aad fiirinaysid dad ama xanaanada xoolaha soo barata sida xoolaha loo diro aad barto ama administration soo baratay oo maamulkii aad dadka ku wanaajiso degmadii ama tuulada aad ka timid runtii wax dhaw xafladdeena caawa ee aan ku soo dhaweeyay madaxweyne galmudug intaas ayayna ugu laabtay dadkii soo qabanqaabiyey inta ka soo qayb gashay jaaliyadihii dhammaan u mahadcelinaynaa. si kastaba arrintu ahaatee xafladdaasi ayaa waxa ay ku soo gabagabowday sidii loogu talagalay jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan waddanka Ingiriiskana waxa ay ballan qaadeen in ay ka shaqayn doonaan dib u dhiska dalka Soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka Galmudug. Maxamed Cali Nuur, Universal TV, Birmingham.